deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka mid ah deegaanada uu ka kooban yahay dalkan Itoobiya ayaa waxa uu deegaankani leeyahay 9 gobol oo baaxad ballaaran waxaanu ku sugannahay buuraha Ceelkari ee ka tirsan ama degmada Ceelkari buuraheeda dhaadheer ee la yaabka iyo quruxda badan ee ka tirsan gobolka Afdheer waxaanan hadda ag taaganahay ama aan ka soo baxaynaa dhulka Lowlandiga loo yaqaan anagoo u gudbaynaa buurahan quruxda iyo cimilada fiican ee aad aragtaan qabowga Ceelkari iyo roobka aan kala go'a lahayn ee ka daa degmadani waa mid u yeelaya bilic iyo soo jiidasho ballaaran degmada Ceelkari bilicdan iyo quruxdan ku dahaaman buurahan dhaadheer ee degmada Ceelkari waa mid kugu dhalinaya xusuus gaara iyo soo jiidasho wacan markaad gashay ilinka hore ee degmadani Ceelkari durtadiiba indhahaagu waxa ay qabanayaan buuro dhaadheer oo cagaaran waxa intaas indhahaaga u dheer oo la yaab iyo tacajab badan kugu dhalinaya indhaqabadkaaguna ay soo jiidanayaan qulqulka biyo dhaceennada kuwaas oo qofkii arkaa uusan in badan qalbigiisa ka baxaynin waa galab ka duwan galabo badan ama maalmo badan oo noloshayda soo maray Ceelkari iyo cimilada cajaa'ibkii waxa ay durba naftayda ku curiyeen inaan cagaha u dhaqaajiyo si aan wax idinka tuso cimilooyinka cudoon ee degmadani Ceelkari
muuqaalka idin muuqda waa biyaha buuraleyda kore ee deegaankani ceelkari waa biyo ka imanaya buuraha fog ee degmada ceelkari waxaana biyahana yihiin kuwo inta badan ka soo dhaca xilli roobaadka buuraleyda degmadani ceelkari waxaan jecelnahay bal biyahan ka yimid guud ahaanba buuraleydan kore ee degmada ceelkari inaan eegno qaabka ay u dhadhamayaan oo aan dhadhamino xaqiiqdii biyahani degmada ceelkari ee buurahani ka soo dhacaya waa kuwo dhadhankoodu aad u macaan yahay isla mar ahaantaana ah biyo nadiifa markaad afka gelisa ama aad dhadhamisa biyahan waxaad moodaysaa biyo la filtargareeyey ama nooca la hagaajiyo ee laga ganacsado runaantiina biyahan waa biyo si walba oo adeegto ugu noqonaya in la cabo isla mar ahaantaana looga faa'iidaysto khayraadka kala duwan ee deegaankan biyahan ayaa waxaan dhihi karnaa iyadoon loo samaynin filtargarayn kare haddii caagad keliya inta lagu shubo afka laga xidho biyahani kama dhacaan biyaha la filtargareeyey barnaamijkeenna aan ugu sii socon doonnaa oon ku guda jirno buuraha qabow ee ceelkari iyo quruxda ku dahaadhan waxaa inta badan nolosha bini'aadamka qaabeeya deegaanka dabiiciga durba waxaan dul tegay durdur biyo ah oo qulqulaya oo in badan aan mooganaa dhagaxaan waaweyn oo ay u dheer tahay midabka qurxoon ee ku yaalla korkooga codka iyo shanqadha aad maqlaysaan waa mid ka mida biyodhaceennadani degmada ceelkari taasoo ka dhigaysa goobtan mid ka duwan goobo badan intaasi kadib waxaannu dhaqaaqnay dhanka buuraha dhaadheer iyadoo in yaruun kadib aannu gaadhnay goob magaaladu badideed aynu hoos timidday iyadoo qofkii rabaana uu halkani korkeeda ka daawan karo dhaqdhaqaaqa ka socda hoostiisa ama magaalada waxaa dabarkayga ka muuqda magaalada ceelkari oo run ahaantii ay ku wareegsan yihiin buuro qurux badan oo markaad eegto indhahaaga soo jiidanaya magaaladan ama degmadani ceelkari ayaa waxay caan ku tahay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin khayraadka dabiiciga ah isla mar ahaantaana laga helo waxaana magaaladani ceelkari ama degmada ceelkari waxyaabaha aadka loogu xusuusto ka mida biyodhaceennada quruxda badan een inta badan ku oolin dalkeenna ama goobo yaroo dalkeenna keliya ku yaalla socdaalkaygii waxaannu u sii qaadnay dhanka buurta korkeeda oo iyadu leh cimilo iyo qurux soo jiidasho badan socodkii buurta dheer aannu ku beegsanaynay goobta la yaabka badan ee biyodhaceenka nasiib wanaag daal badan kadib waxaannu soo gaadhnay biyodhaceen ka mida goobaha biyodhaceennada ee la yaabka mudan sida idin muuqata taraag dheer baan soo galnay oo buur dheer hadda waxaan joognaa mid ka mida goobaha quruxda gaarka ah uu ilaahay ku manaystay ee degmadani ceelkari degmadii oy naga hoosaysaa oo buurta hoosteeday ku jirtaa biyahanna waa biyaha buurta degmada korkeeda ama magaalada korkeeda sida idin muuqata waxay ka soo dhacayaan masaafo aad u dheer oo runtii qof kasta uu arki karo sida goobtan ay tahay waa buuraley waa dhul qabow gu iyo jilaal waa dhul biyuhu ay had iyo jeer ka soo laga helo dhulka buuraleyda waa dhul geedaha ka baxa ay ka dheer yihiin geedaha kale ee ka baxa deegaanada kale ee gobollada kale ee deegaankeenna goobtan aan joognana waa mid ka mida marka goobaha biyodhaceennada ee degmadani ceelkari inkastoo ay inoo harsan tahay weli inaan sii soconno buurta
oo aynu gaadhno meesha laga sameeyey biyogelinta degmada ceelkarri oo ah biyo ka soo baxaya buuro dhexdood islamarkaana ay xukuumaddu ay uga samaysay biyogelin inta tuubooyinka iyo nidaamkii biyogelinta la sameeyanaya magaaladu biyo aad u macaan ay isticmaasho ay ka cabto runtii waa goob mudan ama waa deegaan u qalma aqoonsi dhanka dalxiiska ah oo dad fara badan oo dunidan ka mid ayna maanta haysan waana goob istaraatiiji u ah deegaanka soomaalida hadday tahay dhanka quruxda hadday tahay in laga sameeyo mashaariico dhanka maalgashinta lagu sameeyo oo tourismka dalkeenan Etoobiyana way yar yihiin goobo sidan oo kale ah deegaanada Highlandska aad bay ugu yar yihiin ama dhulka buuraleyda dalka runtii aad bay cimiladu u qabowdahay aad bay ku farxad gelinaysaa waa maalin innaba caadi ahayn qof kastana shucuurtiisa ma taqaana farxadeed kor u qaadaysa waxay ka mid tahay waxyaalaha khayraadka dabiiciga ilaahay ku marisay dawlad deegaankeena Soomaalida Itoobiya ee u baahan in la daafro goor walbana la arko aniga run ahaantii waxay tahay farxad aad iyo aad aan soo koobi karin sababtoo ay tahay cimilada dhulkii aan ka imid jawiga ka jira iyo kan difference u dhaxeeya markaad eegto run ahaantii waxaad moodaa xaalad inaba caadi ahayn run ahaantii waxaan oran lahaa in hore naloo soo dubcurashay ahayd si aan u aragno kala duwanaanshaha iyo farqiga u dhaxeeya dawlad deegaanka iyo madaragta jawiga cimilada aad iyo aad u qurxoon ee wanaagsan run ahaantii waa xaalad aad iyo aad u fiican biyaha aad arkaysa waa biyaha soo dhacaya goobo kale oo tan la mid ah ayay degmadu leedahay ama ka sii qurux badan run ahaantiina waa mid cid kastoo aragta farxad gelinaysa sida jawiga ka muuqda qowgan dheer oo arkaysaan oo dalxiisayaasha dhan oo iman karaan aad iyo aad baan ugu fiicanahay biyo iyo wax kasta aan ka heli karna aad iyo aad baan ugu fiicanahay aad iyo aad dhabba mananta goobtay simanana laan ka faa'iidaysay kay dalxiisna aan tabi kari afku dalka aan tabeen dhabba ku mahsan ya dhabba mananta tani waa ceeryamo aad muddo daruuro dhulka soo hogal dhigay balse waa subax inta badan dadku ku waabariisteen nabad iyo jawi deganaansho ay u dheer tahay cimilada qurxoon ee degmada ceelkarri goobtani ama buurtani ku taalla duleedka degmadani ceelkarri waxa ay leedahay dhismayaal qadiimiya oo wakhtigani ka sii muuqda kuwaas oo ay ku naaloonayeen maamullo ka soo teliyey dalka waxaase la yaab leh goobta biyogelinta looga sameeyey magaaladan oo ah buuro dhexdood biyo ka soo baxaya degmadani ceelkarri oo ka mid ah 10 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Afdheer ayaa waxaa sida odayaashu ay noo sheegayaan ay leedahay magaalo qadiimiya taasoo la dhisay ku dhowaad hal qarni ka hor
وميل آدي هذا فهمت أكو نكسن ونفط بنيانه كحتى odayaasha hadda halkan ku nool waxay noo sheegeen dadka halkan degan xataa da'doodu inay 100 iyo dheeraad inay gaaraan aan la soo waxaan la kulmay dad runtii ay aad u weyn da'doodu marka haddana aad aragto aad isdhahaysid dadkan da'daas ma gaarin ayaa halkan ku nool khayraadka ilaahay waxa kamid ah koow horta malabka ayaa kuka malabka ayuu ilaahay ku manaystay maxay la nolol bay leedahay fooxay leedahay dhulbeerad bay leedahay webigan web ayaa dhinac ka mara dhulbeerad waxay leedahay ku habboon runtii nooc kastoo maarta la beeran karo in soo saari kara ayay leedahay waxay kale ku habboon tahay maalgashi in laga sameeyo hoteelo in laga sameeyo ilaahan dabiiciga qulqulay ilaahay ku manaystay ayay leedahay waa meel istiraatiiji ah runtii oo gobolka isku xidhan runtii qaybtan kore ee magaranaysa deegaanka aan dhihi lahaa dadka qurba joogta ama dadka u dhashay deegaankan inay halkan yimaadaan oo ay ka samaystaan magaranaysa hoteelo ay ka samaystaan meesha hadda aan ku sugnahay oo kale ninka hotel ka samaystay waa la hubaa inay noqonayso meel tourismka macaan oo dalxiisayaashu haddii noqoto dal gudihiisa dibadda meel la iman karo loo soo dalxiistay karo goobtani aan joognaa waamka waa goob ka mid ah degmada Ceelkarre waliba waa magaalada gudaheeda oo meel ka baxsan maaha marka biyaha nimka hadda dhacayaan arkayno waa biyo dabiici weeye wax matooro keena ma jiro wax ceel oo loo qaday ma jiro waa natural weeyaan waxaana ka soo baxaan buurtan weyn ee kurkeena salkeeda ka soo baxaan 24 saacadood way socdaan saasi darteed waa biyo iska jiro min Allah ku yimid weeye biyahani magaaladu way ka faa'iideysataa sidee bay uga faa'iideystaan nidaamkii waxay uga faa'iideystaan magaaladu waxa loo sameeyay meel maaragtay kayd loo sameeyay maadaama biyo dhacay yihiin kayd baa loo sameeyay barkada la sameeyay oo xukuumaddu ay sameysay marka barkadahaas ay ku dhacaan kadibna haddana barkadaha lafteedu waxay ku yaalaan iyaguna meel maaragtay jaran ah ama iyaguna lowlandia kadibna waxa beeb la geliyay magaaladuna way ka soo hooseysaa marka beebkaas qaybiya xaafad walba iyo guri kastaba qasabad baa ugu tagta oo biyahaas oo loo geliyay marka 80% ama 90% waxaan oran karnaa degmada gudaheeda magaalada gudaheeda hadda biyahaas iska socda arkaysa waa biyo ku filan weeye marka biyahan waxa weeyaan waa biyo aad iyo aad maaragtay mucjiso ah marka meelo fara badan oo kale oo degmada maaragtay kamidana way ka jiraan oo buraha degmada meelo kale fara badan ay ka jiraan baa jira degmada Ceelkarre waa meeshaan is oran karo goobo dalxiis laga sameyn karaa sababtoo ah waxay horta la mid tahay goobaha Highlandka ee Ethiopia sare ayay la mid tahay waa dhul buuraleeya waa dhul inta badan gu iyo jilaalba cagaara oo evergreen ah waxay kale leedahay goobo taariikhi ah waxyaalo fara badan oo qadiimi ah oo leedahay baa jira marka waxaan soo lahaa waa goob ku fiican dhinaca dalxiiska aad iyo aad ugu fiican 100% dad fara badan oo qurba jooga waxa jirta ka faa'iideysan kara goobahan oo kale oo maalgashi ku sameyn kara gudoomiyahan oo afkii shacabka degmada ku hadlaya maxaa fariinood iyaga gaarsiin lahayd guud ahaan marka hore waxaan oran lahaa dadka maaragtay deegaankeena u dhashay ee qurba joogta ama dalka dibadiisa jooga guud ahaan horta marka hore dalkiina oo dhan ku soo dhawaada baan oran lahaa oo guud ahaan deegaanka Soomaalida ku soo dhawaada maalgashada gaar ahaan haddana especially degmada Ceelkarre ku soo dhawaada oran lahaa maadaama ay tahay goob aad iyo aad ugu habboon dhinaca dalxiiska iyo dhinaca istiraatiijiyadda maaragtay nidaamka tourismka maadaama ku fiican tahay badnala arkaan oran lahaa degmada Ceelkarre hal yimaado hana la arko maaragtay maalgelin lagu sameeyo waxyaalo fara badan oo imika maaragtay hadii dib loo habeeyo la casriyeeyo waqtigan cusub maanta hadii looga faa'iideeyo la isticmaali karo oo caalamka looga iman karo ayaa jira marka hana la arkaan leenahay dalkiina maalgashaan leenahay wali daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena buuraha qabow ee Ceelkarre iyo quruxda ku dahaaman barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa quruxda uu Ilaahay ku manaystay degmadani Ceelkarre ee ka tirsan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolkani afdheer oo in badan oo deegaanka kamid ayna in badan khayraadka ku dahan degmadani ka garanin goobtan aan joognaa waxa weeyaan mid kamid ah goobaha biyo dhaceennada degmadu ay leedahay sidaad aragtaanba goobtan waa goob la nidaamiyay oo loo sameeyay drainage ama goobtii ay biyuhu marayeen si looga faa'iideysto ilaha khayraad ee dihan ee degmadan gaar ahaan biyahan aad aragtaan yaa waxay yihiin biyo ka imanaya buurtan korkayga ku taalla aadka u dheer kana soo baxaya goobo buurta hoosteeda waxa barnaamijkan aan ku eegi doonaa bal biyahan oo loo sameeyay nidaamka drainage-ka isla markaana inta ay halkan maraan ku dhacaya jaranjarooyin kala duwan oo barkada gaaraya kadibna goobo kale lagu sii shubayo si loogu gaarsiiyo magaalada waxaan eegi doonaa biyahani dihan ee khayraadka ah ee waliba aadka u nadiifta goobta ay ka yimaadaan buurtan baaxadda ballaadhan ee korkeena ku taalla
sidan idiin muuqata goobtan iga hoosaysa biyuhu waa halkan meesha ay ka soo baxaan ama ilaha biyaha ee degmadani biyagelinta looga sameeyey halkan ayay ka soo baxaan guud ahaan markaan ka warramo magaalada biyaheeda biyaha horta waa biyo macaan oo aad Highland baaski ah oo macaan wuxuuna ka soo baxaa biishaas aad aragteen buurta hoosteeda marka waqtiga hadda lagu jiro xilli roobaadka aad biyaha u badan yahay biyahaasna waa la qaybiyaa oo xaafadaha loo kala qaybiyaa waa biyo macaan sida idin muuqata waa dhisme qadiimiya oo waqti dheer ay hadda ka soo wareegtay goobtan waxaa kale oo degay ingiriiska sidoo kale waxaa goobtan degay talyaaniga oo xarun u ahayd iyadoo sidoo kalena goob waqtiga dheer kadib qiimaheedii ama dhismayaasheedii ay baabeen daarta markii ugu horeysay waxaa dhisay ingiriiskii baa dhisay kadibna waxaa uga dambeeyey boqorkii Itoobiya ee hore ee loo jiray Haile Selassie ayaa deganaan jiray qasrigiisa khaaska ah oo halkan haabay maartay ka mid tahay halkan waxaa ka soo galay jidweyn oo baabuurta ay soo qaadi jirtay ayaa soo gala marka boqortooyadii baa deganaan jirtay maartay ka dhisantay ka dhigan tahay taas marka waxa cadeynaysaa taariikhda dheer ay leedahay degmadan Ceelkarri ayay maartay makhraati ka tahay waxaan ku dhashay degmada Ceelkarre haddaan warbixin gaaban idinka siiyo goobtan waa goobtii saldhig u ahayd ama gudoomiyaha gobolka uu degi jiray uu keensaday Haile Selassie waxaana dhisay Ingiriis baa dhisay 1948 isagaa dhisay inkastoo haanta ay duduntay dabeelaha iyo roobkii baa saa u galay laakiin waa meesha istiraaji ah ay weligoodba ay degi jireen waay maamulo kala badan baa isku bedelay hataa waxay ku lahaayeen qudaaro fara badan bay lahayn liimo burtukaan la yiraahdo la cuni jiray baa inta ku yiilay socdaalkan aan ku eeganay buraha qabow iyo quruxda ku dahaaman degmada Ceelkarri ayaa waxaan uga sii soconnay dhanka koonfurta xarunta degmada iyadoo intii aanu soconnay ay indhahayagu qabanayeen dhul buureedyo cagaaran oo naftu jeclaysanayso iyo goobo buura ah oo la yaab iyo mucjisooyin gaar leh inta badan dadka ku dhaqan deegaankeenna ayaa ah kuwa xoolo dhaqataa balse maanta goobtan aan joognaa waa maalinta gabayaaga waxa aan joognaa tuulada Eelood ee ka tirsan degmada Ceelkarri beeralayda tuuladan waxa ay maanta u tahay maalinta suuqgeynta waxaana kala qayb galnay maalin ka duwan maalmaha kale maanta waa maalinta macnaha maxay ahayd nin walba wuxuu haystay uu soo iibgeeyay sida khudaarta milixda xoolaha waxyaabo badan oo macnaha nin walba wuxuu haystay maanta uu soo iibgeeyay maanta la kala gadanaya babayga cambaha maxay ahayd malabka waxyaabo badan bay fooxa hadda waxaan gacanta ku hayaa waa kana waa xabakadii oo kale waxa la keenaa macnaha waa maalmaha la keeno la kala iibsado weeyaan isku soo wadagee socdaalkani cagaaran ee degmada Ceelkarri aanu ku joognay waxa ugu la yaab badnaaba waraysi na dhex maray laba nin oo isku daa balse midna yahay mid aad u gaaban midna kable ka talalayahay balse labada nin daadoodu waa 18 jir labada nin ee idin muuqda oo degmadani ku dhashay oo midna uu yahay ninkan weli aadan garabkayga midig fadhiya oo ah ninka aan isdhihi karno deegaanku ugu gaaban yahay ama degmadani Ceelkarri ugu gaaban yahay iyo ninkan oo magaciisa la yiraahdo Muuse Mukhtaar Sheekh Isxaaq isla markaana aan isaguna ah ninka ugu dheer degmadan ama ay yar tahay ama uu noqon karo ninka ugu dheer deegaanka Muuse oo wiil dhalinyaro ah oo 28 jir ah waa ninkan aad aragteen ee dhararka inta leeg leh waxa uu Muuse ku nool yahay degmadan Ceelkarri tuulo ka tirsan oo Eelood la dhaho muddo badan buu dhukan joogay waa nin dhararkiisa iyo awoodiisa Ilaahay siiyay ay tahay mid mucjisa ninkan weligiina waa nin isaguna sidoo kale ay ninkan isku daayihiin
waa nin 28 jira waa nin ku dhashay degmadan ceelkari weli waad aragteen bal ugu horeyn waxaan jecelnahay inaan ku soo dhaweyno telefishinka caalamiga ee STV weli telefishinka caalamiga ee STV ku soo dhaw waxaan ku dhashay degmada ceelkari ahaan inta ku soo koray marka dambe marka naga soo goray alxamdulillah intaan bulayleekisi iskuulka nagana yarkan baa jooga marun baa jishin dhaliisa ka xigay waxbarasho ligay cimilada inta la qabsan waayo ka soo noqdo imakaan joogaa aragtaan ceelkari baan joogaa ha dadka qoyska iyo qaraabada ma waxaa jirta cid adiga ka hor sidaadoo kale ahayd oo hidaahaan aad uga raacday gaabnida may ilaahay baa saa noo abuuray cidna kama raacin xaafadeena kuwa ay la dhashay way dhaadheeriyiin yaa adeerayga dhammaan aabay waa aragtaa u dheeriyay oo idin ay dhashay walaalay dhammaan ay dheeriyeen cidna kama raacin ilaahay baa saa noo abuuray may ilaahay la nasiisay dheeraad ilaahay nasiisay la dhamarka una nasiisay miyaa jirtaa dhibaato uu kugu hayo gaabnidani wax dhibaato ay kugu haysaa miyaa jirtaa may wax dhibaato ay sama jirto dibna waxa weey ma dhimayso aan ku faraxsanay dadku waxay qabaan la qaba aan ku faraxsanay waan ku raaxsanay aniga dib ma qabo qoyso ilaahay waan ku mahadsaday dib ma qabo gaabas dib ma naga ridde ha dagmada way ku faraxsan wax dhibay wax rabashay ma jiro iyo kuma rabshan iska wala noolay dadkii marka dheerusa kayna la yaab ku yaalde dadka kale la yaab ku aan waan ka galaakin ku mahadsanay oo ma jirto ilaa iyo hadda wax kab ah oo leekaatay oo ninkan uu intii uu noloshiisa jiray uu arkay waa inta badan cagaaga ku socda dhul buurale iyo cagaagan kaga dhaadhaca haddii ilaahay uu ku siin lahaa maalka adduunka oo dhan oo lacag yeelan lahayd maxaad jeclaan lahayd inaad lacagtaa ku qabato dadku qaata yiri marka miskiinta iyo marka siisi dhamaan soo sadag iyo sadag marka taas weelde waa labada nin oo isku degmaa isku daa laakiin farqi weyn u dhaxeeyo dhanka dhararka oo dhanka abuuritaanka ilaahay weeyaan waa mid ka mid ah mucjisooyinka degmadani ceelkari weliyow maxaad ka cadhootaa markaad cadhootase maxaad samaysaa markaan cadhoono qofkaan cadhoono in aniga dilun baan ka jecelay waxaan hayo inaan ku dhufto mooyaane kaba noqonayo markaad cadhooto muuse markaad cadhooto maxaad samaysaa shubaka inta dhaafay dhamarka waan taag ugu shiday waa weli aadan iyo muuse mukhtaar oo labaduba ay ku nool yihiin degmadan ceelkari intaasuu noogu egyahay degmadan ceelkari oo ku taalla gobolka afdheer masaafo ku dhowaad 1 kilomitir u jirta xarunta gobolka deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxay tahay degmo waxyaabo fara badan oo qadiimiye laga helo isla mar ahaantaana muddo dheer iyo taariikh badan oo soo jireen leh mucjisooyin fara badan ee degmadan ay ku duugan yihiin